sharci darran diidanahay anigu wax kale ma diidan marka maxay tahay sharci darrada lagu dhaqaaqay sharci darrada lagu dhaqaaqay waa dastuur jabintaas qodoba madaxweyne ku-xigeenku uu ku leeyahay oo dadkii maxay tahay dastuurka samaystay ay ku dhigeen oo ah in madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenku ay ka wada tashadaan haddaad dastuurka dib u raacdo qodobka 8aad firqadiisa 5aad oo madaxweynuhu leeyahay qodobka 11aad oo dhan ama firqadiisa 2aad ayaad eegi kartaa waxaad ula jeedaa dastuurka qeexaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inay ka wada tashadaan haddii magacaabid la samaynayo heer wasiir ah ama taliyayaal ah ama xilka laga qaadayo mas'uuliyiin haddii xilka laga qaadayo haddii xil la siinayo heer wasiir iyo saraakiisha sare iyo wax allaale wixii digreeta ku soo baxa madaxweynuhu uu ku qoro markaan arkay qodobkaa 8aad wax allaale wixii qodobkaa 8aad ku soo baxa oo digreeta ah waxaa ku ansaxaysaa oo sharci ku noqonaysaa markay ka wada tashadaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku magacaabistii hadda u dambaysay wasiirada iyo kuwa xilka laga qaaday warqadii lagu magacaabay hortaalla sidan bayna u qoran tahay madaxweynuhu markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Puntland qodobkiisa 8aad markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo aragnimadooda shaqo markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland oo adiga Axmed Karaash ah miyaanan lagula tashanin Axmedow adeer ma dhicin marxalad aanu ka wada tashano markaa xaalkayga war mooraysa ayaama hor xoogaa ma maqlaysay odayaashii way iskhilaafeen waan maqlayay bal ma xaqiijin kartaa adiga ma jiray khilaafka muddaba khilaafkaasi waa jiray khilaafkii annagoon ka wada hadlin oo isaga iman oo daaweyn miyaan wada tashan karnaa adaan kuu dhiibay tan dambe haynoo dambayso ee magacaabistii dhowaanta khilaafkan hore maxaa sabab u ahaa khilaafka hore waxa weeye wada tashi la-aan wax isweydiin la-aan madaxweynaha waa la doortay anna waa lay doortay waana wada doortay waxaa naloo wada doortay inaanu wada tashano wada maamulo aan kala badsaneeba oo dee madaxweynaha ahaado anna ku-xigeenkiisi aan ahaade inaanu xoogaal u wada noqono waxa socda waxyaabo badan oo aan maxay tahay diidanahay way jiraan waxyaabo badan oo inaan anigu maxay tahay qabto oo la qabto madaxweynaha ahayd oo aanan qaban way jiraan marka way badan yihiin ma rabo anagu maxay tahay gudaha iyaga mooyaane inaan dibadda u saaro waxyaabaha aan kuu sheegayo Axmed Karaash laakiin waxaa la yiri khilaafku wuxuu ka bilowday markaad qoonsatay taliyayaal ciidanka madaxtooyada la kala bedelay soo wax sahlan ma ahan in askari lagu bedelo taa ma dhib bay leedahay ka qula maaha way sahlan tahay si markaad u eegto waxaan qoonsaday taliyaha madaxtooyadu waa meel naga dhaxaysa aan wada shaqo tagnaa wada joognaa wada maamulaa madaxweynuhu markuu wiilkiisii uu keensaday wiilkii anigoo aan keenayna uu meeshii ka eriyey marka de meel la isku hadlayn karaa maaha marka iyada qura ma ahayne waxyaaba ka horreeyey bay ahayd oo aan doonayay maxay tahay in arrinku uu dibadda usoo baxo mar haddii madaxweynuhu ka waantoogi waayey waxa sanad iyo barkaas soconaya oo noocaas oo miirana marka idinkoon awalba isku fiicneen in warqadan sidaas loo qoro la yidhaahdo Axmed Karaash waa lala tashaday waa qalad baad leedahay warti annaga aan basalaanta bay iska qaadin miyaan wada tashan karnaa adigu caqligaaga la kaaso Axmed Karaash inkastood qodobo dastuura soo xiganayso in Puntland kuma cusbid xukuumaddii Cabdiweli Gaas 5 sanaad la dhamaysatay 2 jeer baadna wasiir noqotay mar wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose xil culus haysay hadda madaxweyne ku-xigeen baad 2 sano ku dhow tahay odayna waa tahay oo ninkii la rabay inuu gacmaha hoos u dhaqo waa adiga Saciid Cabdullaahi intaad u tagtay oo hoos ula hadashay ma tiri adeer waxaan ka daa so many times timahaaga ka badan haye muxuu ku yiri marka aniga ma dadyo kala u tagay adeerow meeshan ana madaxweyne ka ah buu yiri sidoo u dhaqmayana de waa wax tahay ma aduu kugu yiri Saciid kale aniga adigu sidaa kugu yiri ana meesha madaxweyne ka ah nacam hadda maxaad yeelay Axmedow hadda waxaan yeelayaa de oday baan haysaa adii sheegayso oday baan haysanadii barkaana odaytinimadaasaan wax ku soo waday waxaan dastuurka iyo sharcigaasaan ilaalinayaa kaasuma ku taagna